Somaliland way ku filan tahay suulinta khilaafaadkeeda waa amuurta ay ku saabsan tahay faaladeena warku waana qalinkii Cumar Maxamed Faaraxa Jamhuuriyadda Somaliland 32 sanadood oo laga joogo xilligii ay ka baxday midowgii Soomaaliya hantida ugu weyn iyo waxqabadka ugu qaalisan ee alla ku galaday waa nabadgelyada iyo ammaanka oo ay ka gaadhay in lagu tilmaamo xidigta xasiloonida Geeska Afrika tacabkaasi nabadgelyada iyo dawladnimada waxa kaalin ku leh dhamaanba waxgaradka ka soo kala jeeda gobolada dalka oo dhan iyadoo ay jiraan rag halkan adag u mutay isla markaana dhiiga u shubay jidkii dheeraa ee loo soo maray xasiloonida dalkan iyo nabadgelyadan cagaha adag ku taagan ee ka jirta Jamhuuriyadda Somaliland taas oo qof iyo qaranba ay tahay inaynu ugu mahadnaqno eebe si uu noogu siyaadiyo waxa lama huraan in Somaliland ay sii xoojinayso hanaankeeda wada hadalka iyo isqancinta si xal loogu helo khilaafaad kasta oo ka ogma Jamhuuriyadda Somaliland waxa kale oo daruuri ah in hoggaanka dalku xilliyada qaar ku dabciyo xarkaha siyaasadda si looga hortago kala qaybsanaan dhinaca qulubta oo dalka ragaadin karta haddii aan laga hortagin oo aan dhugma loo yeelan sidoo kale xisbiyada mucaaridka ah ee Hungariyeynaya talada dalkuna waa inay yaqiinsadaan in hoggaanka dalka lagu gaari karo oo kaliya dariiqa doorashada Jamhuuriyadda Somaliland waxay leedahay cadow badan oo sanadkan aad hanqaltaaga ula soo kacay kadib markii kooxaha waneey ay ku soo duuleen dagaal ay ka rideen Laascaanood si ay u naafeeyaan dawladnimada Somaliland hasaatee 7 bilood ee la soo dhaafay waxa dhinacyadii isku soo garabsaday dagaalka Laascaanood hortooda timid in aan la loodin karin ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland cadowga Somaliland wuxuu aad u wadwaday maalmahan kooxo dhalinyaro ah ee gashay buurta gacan libaax iyagoo hilmaamsan in Somaliland dhaqan u leedahay inay maara u hesho khilaafaadkeeda sidaas daraadeed waa in laga feejignaada wixii dhagxumo inoo soo jeedi kara ee tumaati ku noqon kara qarannimada qiimaha adag inagu joogta oo aan gali karin safaada ugu dambeyntii waa in jiilasha siyaasaddu la yimaadaan u helanaan iyo wadaniyada ay ku gaarayaan xal iyadoo aan laga hor imanaynin go'aamada hay'adaha ku shaqada leh ay ka soo saareen jadwalka doorashooyinka oo ah mid lagama gudbaana waxaana ay cadowga arrintaasi kala kulmi doonaan hungo iyo qaracan marka uu Jamhuuriyadda Somaliland ay dhamaysato khilaafaadkeeda intaasi waxaan ku soo gabagabaynayaa faaladii warka oo uu qoray Cumar Maxamed Faarax waxaan idin la socodsiinaya anigoo Suhayb Cabdi Goole